wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta gargaar raashin ah gaarsiisay magaalada Buulaburdo ee gobolka Hiiraan. Diyaarad sida gargaarkan ayaa saaki ka duushay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu tahay gobolka Hiiraan, oo uu ka mid yahay wasiirkii hore ee amniga xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed, xildhibaan Maxamed Cabduqaadir iyo xildhibaan Cabdinaasir Shirwac. wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Khadiijo Maxamed Diiri ayaa sheegtay in gargaarkan loogu talagalay dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira gobolka Hiiraan. degmada Buulaburdo ee gobolka Hiiraan oo ay ka soo barakaceen boqolaal ka mid ah dadka ay saameysay abaarta ayaa waxaa hore u tagay ereyga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini'aadanimada iyo gurmadka abaaraha Cabdiraxmaan Cabshakuur, kaasoo sheegay in xaalado nolol xumo ay ka jirto degmadaasi.